afgooye xaal qaado waa lagu xumeeyay xaal qaado maadan mudnayn inaa sidaa ahaata ee bliis xaal qaado waxaa ku dayacay gacmihii lagugu aaminay waxaa ku dayacay xildhibaano aanan ogeyn jiritaankaaga waxaase kaaga daran koonfur galbeed Soomaaliya oo madaxdeeda loo dhaariyay inay ku dhowraan kugu aaminaan maamul wanaagsan haba ugu daraadee madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ahaa shakhsigii ugu horeeyay ee loo dhaariyay inuu sidaa ku dhaamo afgooye adigoo bixiya canshuurta ugu badan ee soo gasha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxaase abaal lagaaga dhigay kow maamul shacabkaaga aan ka iman ee musuq miiran kaliya canshuurta u gura koonfur galbeed ee Soomaaliya labo in jiritaankaaga uusan ogeyn madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waayo hadduu ogyahay kumuusan hareer mareen ee xaaladda aad ku sugan tahay ayuu soo booqan lahaa waxaa markasta gudoomiye lagaaga dhigaa hadba midka ay wataan madaxda koonfur galbeed ee Soomaaliya haba ugu daraadaanay wasaaradaha maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha gudaha kaliya waxaana amar lagu siiyaa canshuurta noogur inta kale yeelkeeda Laftagareen أقول عيرو أبغى أسلوي سامع واقع رفعتهم الجرا أبغى سايستادين بدي أشكلية واحد قوة جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقمة أبوي قارن قديان حالدي سانة مريسا قار دمر دبوا غبان شعب وينا دبوا غبان بشاشة دبوا غبان باور دبوا غبان بعدد كمرة دبوا غبان مبامنا كمان تكسية مركا قدمية دقمة معلوم الميت وسمره وجده أحب كغونه يمله فير ساعد ملوك الوالد afgooye xaal qaado waa lagu xumeeyay xaal qaado maadan mudnayn inaa sidaa ahaata ee xaal qaado